السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كورسكني Adobe Illustrator CC 2015 وأد كقادتان Samsung Academy عشر كينا ما توقعوا كسابسي هاي قابل لو دياريا أما لو ديزاين كرايو food menu وإيميج كان هرتينا كم مغضو وهذا أتكتو مقايدة عالمية waxaad ku arkaysaa ama waxaad ka helaysaa miiska dushiisa waxaa loo yaqaan food menu kaasoo aad ka heli karto cuntada ay hayaan food menu-gana maanta ayaan rabnaa inaan sameyno waxa uu ka kooban yahay qayb loo yaqaano frontigan iyo qaybtan gudaha oo ah information gudaha ku jiro halkaana qaybta hore waxaa lagu qoraa company informationkiisa iyo inta uu shaqeeyo iyo meesha ku yaalo halkaana waxaa ku qoraynaa cunada ay hayaan iyo hilibka iyo juice-ka ay gadaan marka si aan shaqada u bilaawno nala socdo waxaan noo soo kicisaan Adobe Illustrator kid file new ayaa tagaysaa new marka aad tagto halkan waxaan ku qornaynaa food menu artboard kan isticmaalayno waa 2 space ka labada artboard u dhaxeeya waxaan qaadanaynaa 0.5 width-ka waxaan ka dhigaynaa 8.27 inch height kana 11.69 inch ayaan qaadanaynaa rotation kana midkaas istaaga ka dhig kadib okay no leh okay markuu noo soo kaco marka artboard kan 2 artboard aan samaysanay sawiradan waa soo gashaday Google-ka ka soo degto image-dan hadhow waxaa isticmaalaynaa cunno walba markaa qorno saan magaceeda halkaas u dhigno shaqada ugu horeysa waxaan ka bilaabaynaa waxa loo yaqaano background inaan sameyno background waxaa ka hore qaybta horta image-kan halkaa inoo gey image-kan halkaa inoo dhig okay halkaa markaa dhin qaybta hoose rectangle qaybta hoose nagu sawir marka intaa cad waxaan ku sawiraynaa shape oo rectangle colorkiisa waxaan siinaynaa black okay intaa markaa isticmaalo marka qaybta dambe waxaan ka dhigaynaa rectangle color all oo black ah okay intaa markaa sameyno waxaan oo dhiman rectangle yar halkan oo white inaan gelino from halkan halkan geeska naga sax okay intaa markaa sameyno log no xir all waxir kana rabnaa in halkan geeyo okay all select no saar kadib log no dheh saan ugu shaqaysano okay shaqadan marka waxaan ka bilaabaynaa wax loo yaqaano qaybtan dhexe waxaan soo dooranaynaa rectangle shape kadib halkan noogu sawir ilaa intaas oo kale markaad sawirto colorka nan waaye stroke ilaa 5 geena stroke ilaa 5 oo 4 colorkan waxaa ka dhignaa white ilaa badi wax yar last 5 okay intaa markaa sameeyo waxaan rabaa inaan wax yar soo xoodiyo saan u sameeyo qaybahan dhexe gudaha dooro kili ku dheh shiftina qabo afarta gees saan u dooro adoo hayo shift kadib gudaha u soo jiido wax yar okay intaa markaa sameeyo gudaha waxaan ku qoraa food menu size-ka aan weyneeyo colorka white ka dhig halkan gudaha geli size-ka wax yaryare far waxaan isticmaalaa loo yaqaano sitka okay farta waan soo gashaday sitka okay qaybtan hoosena waxaan ku qoraa food and juice soo qaad halkan hoose noo dhig colorka waxaan ka dhignaa kan aan qaadanaysaa size-keeda yaray okay intaa markaa sameeyo qaybtan gudaha waxaan soo gashanaa nambarada laga heli karayo waxaas
okay halkan dhexena waxaan dhiganaa okay maxaa soo geliyay numberkaaga emailka maqaayadda oo kale iyo locationka ay ku taal halkan hoosena waxaan ku qoray open Saturday up to Friday macnaha holidays way shaqeysaa iyada maalin laga nasanayo ma jirto sabti ilaa jimco way shaqeysaa okay qaybtaas design-keeda markaa dhammayso qaybta hore frontiga waxaan u dhimin qaybta dambe oo baagga inaan design garayno iyadana shaqada laga bilaabo maxay tahay halkan waxaan ku qoraynaa food menu color white si noo soo halkan noori halkan markaa dhigto qaybta ka koraysa waxaa ku qortaa food and juice food and juice color waxaa siinaysaa like this size-ka waa yarayna size-ka noo yaray ilaa 25 camalkii okay halkaas soo qaad markaa gaari soo dhawey centerkii okay labada dhinac waxaan sameynaa line inaan dhigo shift isticmaal stroke de ilaa 2 color white si noo soo qaad marka line-kan oo dheer yahay naga soo yaray okay line kale halka kale ka dhigaa kan noo koobiyey halkan noo gey okay waxaan sameynaynaa all highlight noo saar kadib waxaan saxaynaa inay line-ka straight line kan noo door central distributor center oo micnaheedu tahay line-mada dhanka dhexda ka sin okay marka intaa dhamayso waxaa ku xigo design gudaha inaad sameyso oo shaqadii bilaabo design gudaha intaan bilaabin waxaan sameynaynaa mastarad control R mastarad noo soo qaad halkaa noo dhig idile copy copy markaas u sameyso control D quote ilaa downka okay intaa markaad sameyso line kasta labada dhexe ka tuur labadan dhexe tuur sababtoo layma badan uma beenaanay cabirkan ku saxanayo oo kaliya okay kan hoos noo geeyo waxaa noo dhiman layman dhinaca kala laba line soo qaad halkaa noo dhig mid kale noo soo qaad halkaa noo geey ilaa 8 kan ilaa 0 waxaan sameynaa marka waxaa laga rabaa magacyadii inaan halkan soo geliyo iyo magacyadii iyo waxaan soo gelinayo image-yadii magacyadii halkan oo kala soo dhiganaysaa magacyadii marka way badi yihiin anaga halkan ka soo qaadanayna marka okay marka magacyada soo geliyo waxaan rabaa mid kasta image-ka inaan horgeliyo image-yadan way ii diyaarsiin halkan ii yaalaan okay image-yada markaan soo geliyay waxaa ii dhiman marka
inaan halkan ku qoro juice, halkan aan ku qoro magacyada aan ku wada hor qoro. Okay, magacyada markaan ku qoray waxaan rabaa inaan sax magacyadan line-kooda labada magac inaan isla toosiyo rabaa. Macalin image-yadooda ay line u noqdaan. waxaan noo doortaa horizontal distributor center. sidoo kale kuwaana sax. Okay, markaan sidaan u hagaajiyo waxaa malaysaa halkan inuu space ka soo haray. Space-ka uma baahan markaan inuu space soo haro. Saan u saxo waxaan iska qaadaa calaamadahan masaradaan iska qaaday kadib all highlight ii saar kadib down waxay root. Okay, size ku waxyaro ku daro. Okay, weli waxyaro ku jiro halkan qayb ayaan rabaa inaan u saxo. qaybtan kale waxyar siki sababtoo space-ka cariiri noqday. qaybtan kale ku dar. qaybtan dhexe okay, markaan sidaan u hagaajiyo waxaan rabaa layman halkan inaan geliyo. line dooro shift adoo haya ilaa 2 xabo. wax yar aan yareeyo kadib line-kan noo soo koobiyay ayadana mid kale halkaan aan dhigaynaa. labada line inay straight noqdaan aan hubiyo. labadooda ii saar kadib waxaan noo doortaa okay marka waxaa noo dhiman labada halka inaan soo gashano. labada waatan noo soo qaad kadib halkaan noo dhig. okay, I think inaan dhamaynay aysan wax noo dhineen. aan naqshadii diyaarka saxda ah aan soo saarnay. marka si loo sameeyo food menu easy ah waa ka cashirkeena maanta intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa. aad ma santihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.